Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa maalinimo Isniin ah, bisha December-na ay tahay 6 sanada 2021. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya oo duqeymo culus ka wada gobolka Tigrayga. Dowladda China oo ku soo biirtay ololaha dowladda Itoobiya ay bilowday ee looga soo horjeedo faragelinta reer galbeedka. Dhanka Soomaaliyana, dilalka qorshaysan ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo halkaasi la sheegay inay xalay ka dhaceen 2 dil. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn saaxiibayaal rabshado ka bilowday magaalada caasimadda u ah dalka Belgium-ka ee Brussels, halkaasi oo la sheegay in dowladdu ay ku soo rogtay xeerar cusub oo la xiriira dhinaca COVID-19-ka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Haddii aan ku hormarno wararka naga soo gaadhaya dalka Itoobiya, halkaasi oo ay ka socdaan colaado u dhexeeya jabhado isbahaystay oo TPLF iyo OLA la baxay, iyo weliba dowladda federaalka dalkaasi oo dagaal adag kala hortagaysa jabhadahaasi. Dowladda federaalka dalka Itoobiya oo baryahanba dagaalo adagi ku dhex marayeen waqooyiga dalka Itoobiya ciidamada jabhadaha TPLF-ta iyo Oromada, ayaa haatan la sheegayaa in duqeymo culus ay ka fulinayso gobolka ay ku xoog badan yihiin ciidamada TPLF-ta ee Tigrayga, halkaasi oo la sheegayo in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka bilaabeen duqeymo xooggan iyadoo ay horeyba uga fulin jireen magaalada caasimadda u ah gobolka Tigrayga ee Makale. Waxaana haatan wararka ka imanaya gobolka Tigrayga ay sheegayaan in dhowr meelood oo kale la bartilmaameedsaday, isla markaana ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halkaasi ay duqeymo xooggan u geysteen, iyadoo dhinaca kale dagaalada ka socda gobolka Axmaaradu ay ku soo siqayaan gobolka Tigrayga. Ayaa haatan u muuqata in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ay bartilmaameedsanayaan saraakiisha maamulka Tigrayga oo la filayo inay ku sugan yihiin gobolka Tigrayga, iyadoo horey ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeymo xooggan ugu hayeen magaalada caasimadda u ah gobolka Tigrayga ee Makale, halkaasi oo la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha ugu sarreysa ee kooxda TPLF-ta oo ku sugan meelahaasi. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la sheegayaa in ay duqeymo u geysteen meelo magaalada Makale u jiro 100 kiiloomitir, isla markaana tuulooyin hoos yimaada magaalada Makale. Waxaana la sheegay wararka hoose ee ka imanaya meelahaasi in ciidamada iyo weliba saraakiisha maamulka Tigraygu ay u agbadasheen meelaha haatan ay diyaaraduhu aadayaan, isla markaana ay dowladda Itoobiya doonayso inay la gurgurto saraakiisha maamulka TPLF-ta oo haatan isqarinaya. Kadib magaalooyin dhowr ah iyo weliba meelo muhiim ah oo ay dowladda federaalka dalka Itoobiya ay kala soo wareegtay xoogga TPLF-ta, dagaalka dalkaasi ee u dhexeeya ciidamada TPLF-ta iyo kuwa dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa haatan ku siqaya gobolka Tigrayga oo xudun u ah maamulka Tigrayga, isla markaana ay halkaasi ka soo qaadayeen weerarada ay ku soo wadeen dowladda dalka Itoobiya, isla markaana ay caasimadda dalkaasi khalkhalka badan ka abuureen. Waxaana haatan la sheegayaa in kooxda TPLF-ta ay u muuqdaan in gadaal loo riixay, isla markaana ay ku sii siqayaan gobolkoodii Tigrayga, iyagoo magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Axmaarada laga saarayay tan iyo shalay. Waxaana laga soo warinayaa goobaha dagaalka oo aanay ku sugnayn wax warbaahin oo madax bannaan, isla markaana ay dowladda dalkaasi Itoobiya ku sugan yihiin. Warbaahinta dalkaasi ayaa soo tabinaya in dowladda dalkaasi ay la wareegtay magaalooyin muhiim ah oo ku yaala xuduudka Tigrayga iyo weliba gobolada Axmaarada. Ciidamada dalka Itoobiya ayaa isticmaalaya cadeymo u muuqda muuqaalo ay kasoo duubayaan magaalooyinka ay galaan si ay cadeymo uga dhigaan inay iyagu gacanta sare leeyihiin, isla markaana ay kooxda TPLF-ta ahayd ay xilligan dabayshatay oo ay ka carartay meelaha haatan la isku hayay. Guud ahaanna ay weliba furimaha hore ee dagaalka lagaga awood sarreeyo, ayna dib ugu sii guranayaan gobolkoodii Tigrayga. Balse ciidamada TPLF-ta iyo saraakiishooda ayaan qarsanin inay halkaasi ka soo gaadhay dharbaaxooyin xooggan oo uga yimid dhinaca dowladda Itoobiya, waxaana sheegeen inay haatan difaacanayaan gobolkooda Tigrayga, aanay waxa ay u dagaalamayaan uu yahay difaaca dadka Tigrayga. Balse lama oga halka ay la gaadhi doonto ciidamada TPLF-ta oo haatan gadaal u sii ruqaansanaya.
Dowladda dalka China oo ku jirta wadamada taageera dowladda Itoobiya isla markaana xiriirka dhow la leh xukuumadda Abiy Ahmed ayaa haatan ku soo biirtay olole ay dowladda Itoobiya horey u bilowday oo ay sheegtay inay kaga soo horjeedo faragelinta reer galbeedku ay ku hayaan dalkooda. Waxaanay dowladda China xilligan u muuqataa kuwo gadaal ka riixaya dowladda dalka Itoobiya isla markaana la garab taagan hiil iyo hooba. Dowladda China, wasiirka arrimaha dibadda ee China ayaa horey u soo gaadhay magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee Addis Ababa, isagoo halkaasi kula kulmay wasiirada iyo xukuumadda dowladda federaalka Itoobiya inta halkaasi ku sugan. Xukuumadda federaalka Itoobiya iyo shacabka Itoobiyaanka ayaa horey u bilaabay olole ay ugu magac dareen "Intaas ka badan ma jirto" oo ay ula jeedeen faragelinta reer galbeedku ay ku hayaan dalkooda, waa sida iyagu sheegeen. Waxaana la sheegay in halkaasi ay ka bilaabeen ololahaasi xooggan, isla markaana uu ka socday magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa, safaaradaha ay ku leeyihiin wadamada reer galbeedka iyo weliba dalka dibadiisa oo ay qurbo-joogtu ka dhigayeen magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha u ah dalalka reer galbeedka sida Mareykanka iyo weliba Ingiriiska. Waxaana haatan la sheegayaa in dowladda dalka China ay ku soo biirtay wadamadaasi, wadamada taageeraya faragelinta reer galbeedka in laga joojiyo dalka Itoobiya. Waxaana dowladda Itoobiya ay ku taageertay wadanka China inay la garab taagan tahay hiil iyo hooba si ay uga baxaan dagaalada culus ay haatan ku wajahayaan ciidamada dalkaasi, kooxaha jabhadaha isbahaystay ee dowladda khalkhalka badan ku abuuray. Dowladda dalka Itoobiya ayaa horey ugu eedeysay wadamada reer galbeedku inay ka soo horjeedaan dowladnimada Itoobiya iyo guud ahaanba qaaradda Afrika, isla markaana ay cadow ku yihiin Afrikaanka, ayna ka duminayaan dowladaha ugu awoodda badan ay isku maleeyaan in markasta ay sameynayaan horumar dhinac walba leh. Waxaana dowladda dalkaasi ay bilowday ololahaasi lagaga soo horjeedo wadamada reer galbeedka, ayna doonayeen inay ku fidiyaan guud ahaanba qaaradda Afrika. Haatan aan eegno dhinaca Soomaaliya, wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho waxaa halkaasi la sheegayaa in amniga caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho uu habeenadan ka soo darayo, isla markaana dhowr mar dilal lagu geystay dad shacab ah iyo dad dowladda ka tirsan. Iyadoo dilalka qorsheysan iyo weerarada gaadmada ah ay kordhayaan waayihii dambe ee Xamar, ayaa waxaa sidoo kale jira rag hubeysan oo dadka dhac u geysta. Xalay waxaa isgoyska dabka lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda, iyadoo kooxdii dilka fulisayna ay baxsadeen. Sidoo kale waxaa isla xalay lagu dilay isgoyska Cali Kamiin meel u dhow masaajidka Sheekh Cabdi nin dhalinyaro ahaa oo sandaqad ama goob yar oo ganacsi ku lahaa halkaasi. Marxuumka la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu horey uga mid ahaa booliiska Soomaaliya, balse uu iskaga baxay ganacsina uu ka furtay degmada Wardhigley ee xaafadda Cali Kamiin. Dabley bastoolada ku hubeysan ayaa xabado ku furay ninkaasi ganacsiga yar ku lahaa Cali Kamiin, waana ay ka baxsadeen markii ay dilka ka fuliyeen meeshaasi. Amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa baryahan dambe la sheegayaa inuu ka soo darayo, waxaana lagu dhaliilayaa in ciidamada amniga iyo weliba madaxda amniga u xilsaaran inay gabeen hawshoodii halkaasi ay ka wadeen. Magaalada Muqdishona ay haatan wajahayso dilal qorsheysan. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn saaxiibayaal dalka Belgium-ka magaalada caasimadda u ah ee Brussels ayaa waxaa ka dhacaya rabshado xooggan oo halkaasi ay ka dhigayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Brussels, oo ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan xeerar cusub oo dowladda dalkaasi ay ku soo rogtay dalkaasi oo ku aadan COVID-19 ama coronavirus-ka. Waxaana la sheegay in dowladda dalkaasi ay soo rogtay bandowyo kala duwan iyo weliba dhinaca safarada oo ay ka dhigtay meelaha qaar mamnuuc. Waxaana dalkaasi ay ka mudaharaadeen in halkaasi lagu soo rogo xeerar cusub oo xilligan kusoo aadaya waqtiga Christmaska ee dadku ay fasaxa noqonayaan. Waxaanay sheegeen in coronavirus uuna meel lagu soconin, isla markaana loo baahan yahay in dalkaasi lagu soo rogo waxyaabo kale balse aan la gelinin bandow iyo weliba xeerar kale oo dadka dhaqdhaqaaqiisa xadidaya. Khayrta sharafta leh wada nagala socoto, intaasi waxaan kusoo koobaynaa wararkii naga soo gaadhay guud ahaanba caalamka. Intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.